waxaa jirtay waqti ay Nokia shirkadda ugu weyn dunida ee taleefanada soo saarta ayadoona isla markaas ahayd mid suuqyada caalamka oo dhan haysata halka sanadkiiba ay iibin jirtay in ka badan 100 milyan oo taleefanadeeda ah haddaba sidoo company waqtiyada kamid ah nambarka koobaad ee taleefanada dunida uu hal mar dhulka u galay sidoo kalena uu hawada uga baxay iyo mideeda kale waa maxay sababtii ugu weyneed ee ka dambeysay in company intaas leeg uu hal mar u burburo waliba qaladaad uu ku dhacay awgeed هذا muuqaalkeenan maanta waxaan isku leeyahay qaladaadkii waalidaha ee ay ku dhacday Nokia sidoo kalena ka dhigtay in muddo gudaheed suuqyada caalamka kaga baxdo sidoo kalena ay dhulka gasho Nokia is facing challenging and very dynamic times. The game has changed from a battle of devices to a war of ecosystem. هذا shirkadda Nokia ayaa mid aslaanteeda soo bilaabanaysa in ka badan 150 sano ka hor ayadoona shirkadda Nokia ay mid ka soo jeeday wadanka Finland gaar ahaan magaalada ay magaceeda baxsadeen ee Nokia هذا بالشركة أنا يلا أساس تاريخ مركز تكون 660 أيضاً أي أساسين سدحنا لو كلام مجعبه فريدريك ليو إدوارد وحياة طب الشركة أنا يلا صلاحان هذا وقت جالسين متصار التلفون هذا يوحلا يريد الإلكتروني جبا أيضاً هاي متصار تو كلية الوحيدة ورقة يوحي لمذا ميدانون وقت جالسين اللي ربيقول شقينيسي هذا بوحي سنة ضبط أساس عادان بوجود دميتي وحي بلابين نسبة السمايان أيضاً مركز بلابين وريجان تنكاية جناح سجليركا waxayaato markii la gaaray 1960 company-ga ayaa bilaabay inuu isku dhaxwado ganacsiyo kale oo tiro badan kuwaas oo isugu jiray warshado sida warshadaha soo saara xarkaha leerka iyo kuwa keebalada iyo sidoo kale ganacsiyo kale oo aad u badan ayagoona isla markaas ah kuwa business walba oo waqtigaas ay faa'iido ka arkaan iibsan jiray midaanoona 1967 ay dhammaan company-yadaas oo dhan ka dhigtay inay baxsadaan magacan maanta naqaano ee Nokia Corporation hadaba ugu dambeyntii Nokia ayaa si rasmi ah bilowday inuu soo gashay ganacsiga taleefanada taariikhda markaad 1981 markaas oo ay heshiis la gaadheen shirkad lagu magacaabay Mobile oo ay shirkad soo saartay taleefanada ayagoona si wada jir ugu dambeyntii halkii ku soo saaray taleefankoodii ugu horeeyay taariikhda markaad 1982 taleefankan oo lagu magacaabay Mobile Senator hadaba noocan taleefan ayaa markaas ah nooc loo isticmaalay oo kaliya baabuurta maadaama uu culayskiisu aad u badnaa sida yaataba waqtigu socday ilaa laga soo gaaray 1987 markaas oo ay Nokia bilowday inay soo saarto taleefankeedii ugu horeeyay ay suuqa ku soo galayd taleefankaas oo lagu magacaabay Mobile Cityman taleefankan oo ugu dambeyntii iconic noqday waliba markii la arkay iyadoo uu isticmaalay madaxweynihii hore ee Soviet Union-ka ee Mikhail Gorbachev midanoona taleefankaas ka dhigtay inuu hawada galo waqtigaas sida yaataba isla waqtiyadaas Nokia ayaa bilowday inay awoodooda oo dhan markan isugu geyso teknoolojiga iyo sidoo kale taleefanada ayadoona isla markaas bilowday inay dhammaan businessadii kale ay kala yareeyaan hadaba markii la gaaray 90-aadkii Nokia ayaa gashay waqtigeedii dahabiga ah ayadoona waqtigaas wax walba isugu geysay taleefanadii ayagoona sidoo kale sanadadaas soo saaray taleefano badan oo kala duwan kuwaas oo adduunweynaha ku fiday sida taleefanada kala 2110 6110 iyo waliba kuwa kale oo iconic taleefanadan oo waliba qaarkood lagu soo bandhigay filmaan aad caan u ah sida filimkii caanka ah ee Matrix oo kale hadaba guulahaas ay u soo yeeyeen taleefanadii oo la isku daray ayaa Nokia ka dhigtay 1999 ay noqotay nambarka koowaad ee dhammaan company-yada taleefanada soo saara oo dhan ayadoona sidoo kale ringtone-kooda caanka ah meel walba dunida laga maqlayay sidoo kale isla sanadadaas waxay taleefanadoodii ku soo kordhiyeen ayaa game-koodii caanka ah ee Maska game-kan oo noqday iconic sidoo kalena ay dadku aad u jeclaadeen hadaba intaas kadib Nokia ayaa mar kale soo saartay taleefankeedii noqon lahaa nambarka koowaad kaasoo ahaa Nokia 3210 taleefankan oo noqday taleefankii lagu iibsiga badnaa abid asagoona taleefankan ilaa maanta ku jira kaalinta 7 walow soo saaristiisa ay ka soo wareegatay in ka badan 25 sano sida yaataba Nokia ayaa mar ka sii dambeysay mid sii sameeynaysa nambar cusub ayadoona soo saaraysa taleefan nooca ayadoona waqtigoodii dahabiga uu ahaa mid sii socday ilaa laga soo gaaray 2000 ayagoona sidoo kale sanadadaas xigay soo saaray taleefano kale oo casri ah kuwaas oo ay kamid ahaayeen taleefankoodii ugu horeeyay ee 3G ah hadal iyo dhammaan Nokia ayaa ahayd mid gaadhay meeshii ugu sareysay ay shirkadu gaari lahayd laakiin mid aan la qiyaasayn ayaa ahayd in horumarkaas ugu dambeyntii ku xigi doono burbur hadaba waa markay wax walba isbedeleen taariikhdu markay 2008 Nokia ayaa ahayd mid soo xariinaysay in ka badan 76 bilyan oo dollar oo faa'iido ah ayadoona isla markaas ahayd mid ku jirtay kaalinta koobaad ee taleefanada dunida waxyaataba laakiin waxaas oo dhan hal mar ay isbedelayaan hadaba intii ay Nokia haystay caalamka waxaa dhacday dhacdo kale oo uusan qofna filanaynin taariikhdu markay 2007 waxaa dhacday bandhigii bedeli lahaa guud ahaan casriga taleefanada oo dhan bandhigaas oo ahaa bandhigii lagu soo saaray taleefanka loo yaqaan iPhone hadaba farqiga u dhaxeeya taleefanada Nokia iyo iPhone-ka ayaa mid iska cad ah ayadoona iPhone-ku waa mid la jaanqaaday casriga cusub sidoo kalena soo kordhinay waxaan hore loo arkin oo ahaa touch screen midanoona waqtigaas cusbeed halka taleefanadii Nokia ay ahaayeen kuwa sidoodii sidoo kalena aan haba yaraatay wax isbedel sameeynin hadaba waa meesha ay wax walba ka qaldameen hadaba sida caday smartphones waqtigaas way cusboonaayeen
oo markaasun baa la bartay sidoo kalena haba yaraatay ma aysan jirin shirkado badan oo soo saarayay Nokia-na markan waxay awood u lahayd inay la qabsato systemkan cusub maadaama ay ayadu ahayd mid intaasoo san hoggaanka taleefanada haysay laakiin arrinkii la yaabka lahaa ayaa ah in Nokia haba yaraatay aysan ku dhaqaaqin arrinkaas ayadoona isla markaas iska kibrisay systemkan cusub ee taleefanada touch screen-ka ayagoona isla markaas kuwa ku sii socday systemkoodii hore ee qadiimiga ahaa kaas oo ay soo isticmaalayeen sanado badan dhanka kale soo bixidii taleefanadan touch screen-ka waxay sababtay in dadka isla markiiba bilaabeen inay u jeedsadaan dhankii smartphones-ka maadaama ay dadku mar walba rabaan tijaabada wax cusub midanoona isla markiiba dhalisay in Nokia ay indhaheeda ka daawato sida ay dadku ugu guurayaan taleefanadooda sidoo kalena ay u raacayaan casrigan cusub sidoo kale isla 2008 labada company ee lagu kala magacaabay HTC iyo Google ayaa ayaguna soo bandhigay taleefanadoodii ugu horeeyay kuwaas oo ah version-kii ugu horeeyay ee Android-ka waxay yaataba marka ay baraarugtay Nokia sidoo kalena ay ogaatay inay qaladkeedii ugu weynaa gashay laakiin waa xilima sidoo kale maxay kula tahay inay ka jawaab celin doonto haddaba Nokia ayaa bilowday in ay ayaduna bixiso jawaab soo dib dhacday ayadoona soo saartay taleefankeeda lagu magacaabay Nokia N97 Nokia this week announced its long-awaited iPhone killer. taleefankan oo sidoo kale ahaa touch screen haddaba Nokia ayaa taleefankeedan cusub kalsoonidoodii oo dhan isugu geysay heer ayna u bixisay magaca iPhone killer ama dilaagii iPhone-ka hawada ka saari lahaa laakiin maxaa dhacay iska daa inuu taleefankan iPhone killer noqday asaga ayaa noqday midkii gacantiisa isku dili lahaa haddaba dhibaatada ayaa ahayd in taleefankan waa mid qalafsan sidoo kalena ahaa mid muraayadiisa aan la isku halayn karin iyo midda ugu darneed oo ahayd systemkan uu ku shaqaynayay systemkaasoona ahaa Symbian systemkanoona marka loo barbardhigay iOS iyo sidoo kale Android ahaa mid aan sinaba ugu dhigmin ayadoona isla markaas farqiga u dhaxeeyay uu aad u weynaa waxay haataba taleefanka lagu magacaabay N97 markuu isku bedelay khasaaro Nokia ayaa markan si cad u dareentay inay u baahan tahay inay la timaado isbedel toos ah kaas oo ayna ku samayn doonto maamulkeeda haddaba inta aynan ugu gudin qaybta xigta fadlan hadaan hore nagu soo biirin hadda nagu soo biiro channelka subscribe saaro si aysan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo wadnay aysan ku dhaafin sidoo kale ay laawin inaad muuqaalka like saarato aan ugu gudgalno muuqaalkeena waxay yaataba guuldaradaas xanuunka badan kadib Nokia ayaa bilowday inay bedel ku samayso maamulkeedii haddaba 2010kii Nokia ayaa ku dhawaaqday CEO-geeda cusub ee Stephen Elop ninkan uu isla markaas aan jiray madaxa shirkadda weyn ee Microsoft asagoona shirkadaas la sheegay in waxyaabo badan qabtay sidoo kalena waxyaabo badan ku soo kordhiyay asagoona sidoo kale guulo aad u weyn la gaaray heer ay u bixiyaan magaca Change Agency dhanka kale Nokia ayaa iyaduna markan ahayd mid u baahan isbedel toos ah sidoo kalena ay ku soo celinayso shirkadeedan haddaba Stephen ayaa markiiba bilaabay in shir loo wada dhan yahay uu qabto dhammaan shaqaalihii company-ga asagoona shirkan ugu talagalay si qaas ah inuu uga hadlo waxyaabaha ka qaldan company-ga iyo sida ay wax u jiraan haddaba shirkan ayaa loogu talagalay inuu noqdo mid qaas ah sidoo kalena ku eego kaliya shaqaalaha company-gan ayadoona shirkan guud ahaan loo diiday in la duubo sidoo kalena uu bannaanka u baxo waxay haataba Stephen ayaa hadalkiisii bilowday asagoona hadalkiisii oo ilaa ku soo gabagabeeyay sida uu company-ga Nokia ugu dhow yahay inuu dhulka galo sidoo kalena ay tartamayaashiisu mar ka sii dambeysay ay u sii xogeysanayaan asagoona sidoo kale ka hadlay in systemkan Symbian uu yahay khatarta ugu weyn ee taleefanadoodan sidoo kalena loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiya badan looga guuro systemkan waxay yaataba laakiin shirkan ayaa noqday mid khatar badan dhaliya ayadoona shirkan uu si toos u abaariyay Nokia iyo sidoo kale productyadeeda dhanka kale shirkan ayaa isla markiiba bannaanka u baxay sidoo kalena public noqday walow in badan la isku dayay in shirkan uu ku ekaado oo kaliya company-ga gudihiisa midanoona kaliftay in dad badan ay kalsoonidii kala laabtaan Nokia dhanka kale ninkan ayana haba yaraatay waxaasoo dhan waxba ka gelin asagoona midda uu damacsanaa ayba waxaan oo dhan ka weynaayeen haddaba ugu dambeyntii Nokia ayaa si cad u qaadatay go'aankii ahaa inay gebi ahaanba ka guuraan systemkii hore ee Symbian systemkanoona ka dhigay mid qeyrkeeda ka hadha laakiin su'aasha ayaa ahayd halkee ayay u wareegi doontaa midanoona ahayd go'aankooda ugu muhiimsan mustaqbalkooda haddaba Nokia meeshan waxay haystay fursad kale oo ahaa ku biirista Android oo ahaa tartamaha ugu weyn ee iOS iyo sidoo kale iPhone oo waqtigaas ahaa mid ka qabsanaya caalamka oo dhan laakiin midii la yaabka lahayd ayaa ahayd in Stephen uu gebi ahaanba ka soo horjeedsaday arrintaas asagoona isla markaas sidoo kale indhihiisa ku hayay wax kale oo ka weyn waxaasoona Nokia bedeli doona inta cimrigeeda ka dhiman haddaba ninkan ayaa bilaabay in Nokia uu la xiriiriyo shirkaddii Microsoft asagoona bilaabay in taleefanadii Nokia uu ka dhigo taleefano Windows ah waxay yaataba maadaama uu ninkan xiriir toos ah la lahaa Microsoft waqti dheer ma uusan qaadan heshiiskaas asagoona bilowgii 2011 uu Stephen ku dhawaaqay in hawada uu ka saaray systemkii hore ee Symbian hadda laga bilaabanayo isticmaalayaan systemkana Windows OS haddaba Nokia ayaa mashruucan ka helaysa lacag uga imaanaysa Microsoft si ay uga horumariyaan systemkooda Windows-ka dhanka kale marka la eego Nokia ayaa ahayd mid mar ka sii dambeysay si qasaaraysa lacag xooga intaas kadib ugu dambeyntii Nokia ayaa mar kale soo daafayday taleefanadoodii ugu horreeyay ee version-ka Windows-ka
taleefanadan cusub oo lagu kala magacaabay The Lumia 800 iyo The Lumia 710 haddaba waa meesha ay mar kale wax walba ka sii xumaanayaan ugu dambeyntii waqti dheerba ma aysan qaadan ayadoona isla markiiba Nokia ay mar kale ku baraarugtay in taleefanadoodii cusub isla markiiba ay dhulka galaan waxay haataba taleefanadan ay isla markiiba lagu arkay ka duwanaansho ay ka duwan yihiin guud ahaan taleefanada kale oo dhan ayadoona ka duwanaanshahan gaadhsiisanid heer in dadkii taleefanada kale isticmaalaya ay la qabsan waayaan taleefanada Nokia-da ayadoona isla markaas taleefanada Nokia ay u baahnayeen barasho kale oo waliba hor leh dhanka kale taleefanadan ayaa lagu arkay waxyaabo kale oo badan kuwaas oo ay kaga dambeeyeen taleefanada kale ee smartphones-ka sida in taleefanadan ay kaga hooseeyeen speedka dabka iyo sidoo kale storage-kooda oo ahaa mid aad u yaraa iyo mid kale ugu sii darneed oo ahayd in taleefanadan aysan haba yaraatee lahayn wax kaamiro hor ah dhanka kale marka waxaas oo dhan laga soo tago midda kale ay jirta ayaa ahayd in maadaama taleefanadan waqti dambe la soo saaray ayba dadkoo dhan ahaayeen kuwa mar hore usii kala baxay Team Android iyo sidoo kale Team iOS haddaba wuxuu waqtigu socdaba waxa uu shaki toos ah galay ninkii lagu magacaabayay Stephen Elop inkastoo ninkan ahaa CEO-ga company-gan haddana ninkan ayaa la arkay in xiriir qoto dheer uu kala dhexeeyay shirkadii kale ee Microsoft midanuun isla markaas shakhsiyaad badan shaki ku abuurtay dhanka kale guuldarradaas ay kala kulantay Nokia systemkii Windows-ka kadib ninkan ayaa bilaabay inuu ku sii adkaysto systemkii asaguna haba yaraatee wax tallaabaan qaadin halka sidaas dhadigeed haddii uu la jaan qaadi lahaa Android uu noqon lahaa mid company-gii hore u sii socda midda waxaas oo dhan ka sii darneed ayaa ahayd in xitaa la sheegay in ninkan waa mid keligii go'aan ka qaadanayay asaguna haba yaraatee shaqaalaha kale aan la tashan jirin haddaba intii ay jireen taleefanadan cusub ee Nokia 2011 ilaa laga gaadhay 2014 taleefanada Lumia smartphones-ka ayaa la iibiyay tiro gaadhaysa 52 milyan oo xabo haddaba waxaa laga yaabaa inay tiradaas kula badan tahay laakiin ka waran haddaan ku sheegay in Samsung ay tirada intaas leeg taleefanadeedu ku iibisay keliya 2 bilood midanuuna marka la dhalisay in xiriirkii Nokia iyo Microsoft isku bedelo mid khasaaro xooggan ah dhanka kale waxaa mar ka sii dambeysay sii kordhayay shakigii laga qabay ninkii lagu magacaabayay Stephen Elop haddaba muxuu samaynayaa ayay kula tahay taariikhdu markii 2014 Stephen ayaa bilaabay inuu si toos ugu wareegay company-giisa hore ee Microsoft haddii ay midaas la yaab ku noqotay waxa uu sidoo kale ninkan hore u sii qaatay intii ugu badnayd ee Nokia haddaba Microsoft ayaa gadatay qaybtii taleefanada Nokia ayadoona ku gadatay qiimo gaadhaya 7.2 bilyan oo dollar ayadoona sidoo kale Microsoft ay madax uga dhigtay qaybtan ninkii lagu magacaabayay Stephen Elop iyo mid ugu xumeyd oo ahayd in sidoo kale ay hore u qaateen qayb ka mid ah shaqaalayaasha iyo sidoo kale hogaamiyaashii ugu fiicnaa Nokia haddaba inta uusan ku soo biirin ninkan company-ga Nokia ayaa ahayd mid haystay market share gaadhaya 33% halka marka uu ka tagay ay haystay oo keliya 3% dhanka kale inkastoo xiriirkan Microsoft iyo sidoo kale Nokia waa khasaare aad u weyn haddana waxaa jirta kala duwanaansho aad u weyn labada company Microsoft ayaa ahayd mid isla markaaba ka soo laabasho samayn kartay ayadoona 2016 bay iska sii iibisay qaybtii Nokia weliba qiimo gaadhay 350 milyan oo dollar ayadoona isla markaas hore uga sii socotay dhanka kale Nokia ayaan iyadoo haba yaraatee ka soo kabsasho lahayn ayadoona isla markaas ku jirtay khasaare gaadhaysa 5 bilyan ayadoona sidoo kale shaqaalaheedii kuwooda ugu firfircoon ay meesha ka baxeen waxay haataba halkii qaybtii taleefanada Nokia ay ahayd mid burburaysay sidoo kalena dhulka galaysay waxa ayadna sidoo kale dhalanaysay qayb kale oo Nokia ah haddaba qaybtan kale ayaa ahayd qayb isgaarsiin sidoo kalena lagu magacaabay Nokia Solution and Network Department qaybtanuna maamulka ninkan uu lagu magacaabay Rajiv Suri haddaba ninkan ayaa ka soo horjeedkii Stephen Elop asaguna ninkan bilaabay inuu company-ga ka soo qaado meel hoose sidoo kalena uu horay u wado haddaba shaqooyinkii ugu waaweynaa oo ninkan qabtay ayaa ahayd inuu maal gasho technology cusub kaasuna ku soo celinayay Nokia technology-gan oo ahaa 5G haddaba company-ga Nokia ayaa ahaa mid dhisa 5G ka hor inta uusan soo daafidmin ayadoona isla markaas rabtay inay noqoto company-da ugu horeeya daafida technology-gan sidii ay awal u ahayd midii ugu horeysay taleefanada ayadoona ilaa maanta midda maamusha 29% suuqa 5G-ga marka laga yimaado China ayadoona sidoo kale qaybtan isgaarsiinta mid ilaa maanta sidii loogu talagalay u socota halka dhanka kale taleefanadii Nokia ay weli yihiin kuwa suuqyadoodii ku sii jira ayadoona sidoo kale qaybtaas ay maanta hoos timaaday company lagu magacaabo HMD Global haddaba qisada Nokia ayaa cashar weyn oo taariikhi ah midanuuna laga baran karin oo kaliya dunida technology-ga balse sidoo kale maamulka hal-abuurka iyo la jaanqaadka isbeddelka degdega ee suuqa caalamka Nokia waxay ahayd astaan dunida inteeda badan uga dhignay taleefan gacmeed waxay haysatay inta ugu badan suuqyada caalamka oo dhan waxayna sidoo kale ku guuleystay kalsoonida dadweynaha oo dhan weliba muddo sannado ah laakiin ugu dambeyntii markii ay horumarkii iyo sidoo kale hal-abuurkii sii gaabisay sidoo kalena iska dhaga tirtay codkii suuqa isla markaasna ay ka wareegtay nidaamkii cusbaa ee smartphones-ka waxaa dhacday inay lumiso guud ahaan tartankii suuqa oo dhan ayadoona isla markaas soo istaagtay meel cidla ah sidoo kale waxyaabihii ugu darnaa ee sii xumeeyey ayaa ahaa madaxnimo adag iyo sidoo kale go'aan qaadasho aan wada tashi ku dhisnayn waxay yaataba burburka Nokia ayaan ahayn mid ku yimid oo kaliya hal qalad balse waxa uu ahaa silsilad qaladaad oo isdaba jooga
si kastaba ha ahaatee qisada Nokia ayaana baraysay in guusha ugu weyn xitaa ayna damaanad u hayn sii socoshada mustaqbalkaaga haddii aadan joogtiin hal abuur sidoo kalena aadan diyaar u noqonin isbeddel kasta oo cusub. haddaba adiga maxay kula tahay sidoo kale waa maxay sababta ugu weyn ee isleedahay way ka dambeysay burburkii shirkadda Nokia hoos nagula wadaag sidoo kale ilaawin inaad ka war doonto sheekooyinka xiisaha badan ee ku soo gudbina channelkan